وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا kala saraynta dhulku ay marka hore ay ka timaado meelaha sare ee taaga halka ugu hooseysana ay tahay halka baddu ay ku joogto oo la ictibaarsan yahay inay tahay zero sidaa darteed baa biyaha ka yimaada meelaha taaga webigu waxa ay ku soo dhacaan si ay u soo socdaanba badda ayay ka soo dhacaan sidoo kale cufnaanta biyaha webigu waa ay ka yihiin kuwa biyaha badda marka aad eegto taasina waa sababta ay markay biyaha webigu ay ku soo dhacaan badda iskuma dhex darsamaanay xagga sare ayay biyihii macaanaa ama biyihii webigu ay ka maraan kuwa baduna hoosta ayay maraan sababtuna waxa weeyaan biyihii ka yimi webigu waxa ay soo qaadeen ugu yaraan ilaa 112 curiye oo ay ka soo qaadeen goobihii ay soo marayeen dabeedna badda ayay toos ugu soo shubaan lama oran karo webiga oo kaliya laakiin waxa kaloo lamida laagaha biyaha soo qaada ama dooxyada durdurka biyaha soo qaaday meelaha taaga ka soo qaaday badda ku soo darsamaan badii dabeedna maadaama oo xagii density iyo cufnaantii ay ku kala duwan yihiin dusha sare ayay marisaa waxaana u dhaxeeya markaasi oo ilaahay ugu talagalay barsakh ama line aanay marnaba isdhexgeli karin oo isku darsan karin haddaba goob wal oo ka mid ah goobahaasi adduunka ka mid ah badaha ay kaga soo darsamayaan webiyadu ama laagaha biyaha soo qaaday ay kaga soo darsamayaan aan ahayn tii badda iyo qayb biyihii macaanaaya saddexda qaybood ay isku jiraan saddexda qaybood mid walibana ta kale ma dhex gasho mid kale biyaha dhanaan xayawaankii ku noolaa way mar walba ka duwan yihiin xayawaanka kale ee ku nool biyaha dhanaankoodu dhexdhexaadka yahay sidoo kale biyaha dhanaankoodu ku badan yahay kuwii badda ahaa iyagana qaybtii ku noolayd way ka duwan yihiin xayawaanka halkaas saddexda biyo ku noolay midba midka kale ma soo geli karo oo xidhiir lama samayn karo oo macnaheedu haddii uu ka soo baxo ka biyaha macaan ku noolay haddii uu ku wareego ay dhacdoba inuu u wareego biyaha kale ee dhexdhexaadka ma noolaan karayo ka biyaha dhanaan ku jiraana xagga macaan ma soo geli karayo oo marnaba waxa kale oo iyaduna taalo meesha markaad temperature-kii biyaha adeegto iyo heerkulkii biyaha adeegto iyo cufnaantii biyuhu ay lahaayeen midiba midka kale ayay ka duwan tahay taas markaas waxa weeyaan waa biyihii macaanaa ee ku soo darsamay badda waxa kale oo iyaduna jirta laba badood ayaa iyagu laftooda iyagoo biyo dhanaan haddana ah ayay haddana kala duwan yihiin oo meelaha basalan oo kale badda cas oo kale halka ay kaga darsanto Gulf of Aden baddan dhexe la yiraahdo Mediterranean-ka ee Europe iyo u dhaxaysa Afrikada waqooyi iyaduna halka ay Pacific Atlantic ay kaga soo darsanto iyo meelo kale oo kale oo fara badan ayaa waxa iyaguna sida oo kale ay ku kala duwan yihiin cadaadiska iyo temperature-ka iyo noolihii ku noolaa ayaa kala duwan isla markaasina waxa u dhaxeeya mar walba labada badood waxa u dhaxeeya barzakhaasi oo marnaba isku darsami karayaan biyahaasi markay soo socdaan hoos bay galayaan dabeedna hoos bay soo marayaan dib bay hadana socdaan ay soo bilaabayaan muujadii soo bilaabayaan حتى مركا satellite la isticmaalo ee laga sawiro satellite-ka badaha waxa la arkaa in ay kala duwan yihiin xataa kalarada laftoodu biyahaas sidaa darteed buu Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxa uu leeyahay aayadda Quraanka ee labada iyaduna sheegaysa badood inay kala nooc yihiin badaha laftoodu ayaa waxa ay oranaysaa marajal bahrayn yaltaqiyaan baynahuma barzaqun la yabqiyaan waxa turjumay xarunta cilmi baarista aqoonta dhaqanka ee Carri Idib